qoyskani oo doonayay inay dib u midoobaan kadib sanado fara badan oo ay kala maqnaayeen ayaa markii Bintow Siyaadan iyo labadeeda carruurta ahi ay cagaha soo dhigeen ciidda Ameerika intii aanayba ka soo bixin gegida diyuuradaha Dallas ee magaalada tan Washington waxay noqdeen Soomaalidii ugu horeysay ee dhibanayaal u noqota go'aankii uu madaxweynaha cusub ee Mareykanku soo gelidda dalkiisa kaga joojiyay dadka u dhashay 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. saraakiisha waaxda socdaalka ee garoonka Dallas ee magaalada Washington waxa ay ku wargeliyeen aabaha qoyskan oo isagu gobolka Minnesota ku noolaa in reerkiisa dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen oo ah dalka Kenya maadaama qaxootiga iyo muwaadiniinta dalalkaasi 7 loo diiday in ay Mareykanka soo galaan. shakhsiyan go'aanka aad biisaamay waliba kharash aad fara badan oo aad u culus ayaa iga baxay waayo ilaa ugu yaraan 3 tigidh baan iga kansalantay ilaa haddana 7 boorso oo lacag ugu yaraan 5,000 ay iga baxday baan la aayay oo gacan bukayn. inkastoo ku dhawaad 15 saacadood ay ku xanibnaayeen gudaha garoonka iyagoo markii horena 14 saac oo xiriir diyaarad soo saaraa ayaa ugu dambeyntii waxaa loo ogolaaday inay dalkan gudaha u soo galaan go'aankaas oo daalkii safarka iyo diiftii soo jeedkaba ka bixiyay. maantana aad baan u faraxsanahay laga bilaabo xalay markii ahayd 2 habeenimo ilaa hadda farxad ayaan ku jiraa marka xataa farxad darteed seexashadii xataa waan taan eeliway macnaha inaan seexano on waxaa garoonka gudihiisa ku bannaan baxayay dadweyne fara badan oo waddankan u dhashay kuwaasoo aad u diidanaa amarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka ka soo baxay waxaanay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku diidan yihiin siyaasadda Donald Trump iyo sidoo kale weero afka Carabiga ku qoran oo salaan iyo soo dhaweynba muujinayay. arrintaasi iyo go'aankii garyaqaanku uu qayb ahaan ku diiday amarka madaxweyne Trump oo iskaashaday ayaana horseed u noqday